بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jecelahay guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan ugu bishaareeyo aniga oo ka jawaabay qoraal hadda uu soo gaarsiiyay xoghaynta wasiirka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya oo lagu magacaabo Saalax oo lagu sheegayo in qoraal soo baxay shantii bishan aan ku jirno 2018 xilka la iga qaaday afayeenimo anigu waxaan ahaa la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ahna afayeenka wasaaradda amniga gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. marka waxaan rabaa inaad ogaataan maalintii weerarka u dhacay waxaan ku sugnaa xarunta gudaheeda waxaan ahaa dadkii Soomaaliyeed ama saraakiisha ahaa magaca dawladda Soomaaliyeed uga qayb galay halgankii lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed warbaahintuna hadda wixii ay qoreen idinka arki doona anigu waxaan isla maalintii weerarka nala ku soo qaaday oo ku beegan 7 bishii 7 2018 iyadoo saraakiil ka tirsan dawladdu ay nala joogaan xarunta loo yaqaano godka Jilcow ama taliska ciidanka nabad sugidda ee gobolka Banaadir ugu sheegay wasiirka amniga in aan iska casilay xilkii aan ka hayay wasaaradda amniga gudaha ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. aad iyo aad ayuu mahadsantahay. waa gartay warkan soo baxay waxa ku soo aaday adigoon warbaahinta u sheegin saad hadii sheegayso silsilaadaadu haday run tahay adoo warbaahinta u sheegin inaad casishay marka maxaa isku xiray inaad hadda sheegto inaad iscasishay iyo warka wasiirka ka soo baxay? Soomaalidu waxay tiraahdaa war la helaa tala la helaa. waxaan rabaa in shacbiga Soomaaliyeed aan u soo bandhigo warqadda hadda soo gaarsiiyay ninka xoghaynta wasiirka wasaaradda amniga Saalax ku saabsan ee sheegaysa in hadda ka dambeeya warbaahinta kula hadli doona wasiirka wasaaradda warfaafinta. waxaan leeyahay hambaliyo Soomaaliya waxay wajahaysaa waqti adag. anigu horaan u sheegay dad badan oo saraakiil ah oo dawladda Soomaaliya ka tirsanna waa ogaayeen in aan ka tagayo shaqada. waxaan idin leeyahay wixii waraa intaas dhaafsiisanna waxaan laamaha warbaahinta guud ahaan ee Soomaaliya wixii su'aalo ay qabaan uga jawaabi doona maalinimada berrita ah. waa idin salaamaya aad iyo aad u mahadsan. waayahay ugu dambeyn waxaan rabaa afayeen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sababta ii sheeg hal mar aad xilka isaga casishay adoo raaliya. waa garan kartaa Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad adag oo taariikhi ah. ma rabo inaan qayb ka noqdo godobta laga galayo shacbiga Soomaaliyeed. marka macadaadis baa keenay inaad xilka ka tagto mise aad qorshaysatay? aad iyo aad baan u mahadsantahay. waa ku salaamaya. adee wanaagsan.